Soomaalidu waa indha ku garaan leh waxaad ka soo qaadaa in wax soo saarka suuqeena yaala uu yahay halka xabbe ee baradha xaddiga lacageed aynu haysanaana uu yahay halka dollar haddii ay dawladdu soo dabacdo $1 oo kale xaddiga lacageed aynu hadda haysanaa waa $2 laakiin wali wax soo saarkeena waa halka xabbe ee baradha ahayd sidaa daraadeed waxa aynu ku qasbanahay $2 ba in aynu siisano halka xabbe ee baradha maadaama ay tahay waxa kaliya ee suuqa yaala السلام عليكم مرنا بمسكحة لما كوسور دعدي وما يسويدي سدا وده سؤال وارنين بدون بالشدة كمدوا والصبال أما عارف فرمران ضيّر طيّم مساكين توحنا يكعبنا يعني وشيد أما العقل عن صومها لعقتنا وحلا قسم يا وراقة قيمها تمنه ونيو تندولة ده أنت إلهي هذا كيابته ومدن مساكين تأجي قاعد شطور ده ما نسا مية وطابع ده العقب بدن كدمنا مسكين والبلا يسكسي بقولالكم $1 ليش الفخر جبهة تورة ما يسمعوا الدنيا يقام ما دقيقة قيبة كل حاجة سؤال شتان وحنا نقول جواب الدونا الله ما حب الله بضبع وأمريكا كوباد عقليا بين نقول جواب الدونا إنه أمان كان هي مسكحة إنه كل فاقد الدونا وحكرنا لنا كرت طلابة التنا هدي الدولة تقاضوا مرة بعد نوح ندكش في الدونا قاب علمي سنة أما سينتفك مركا كوباد سؤال شهدين وجه جوابنا مسكحيا وحاد ما ليستا إن أي طلابة تن الدولة قاطي صانتها بعد العقبة يدو مواد والباباسيسات تصالحان $1,000,000 فقر قل لي قبح دمان تدكن waxay noqdeen maal qaban meeran wow ma sha Allah waarin wanaagsan may waarin khatartiisa leh waxaanu burburin karaa dawladnimada dalkaas haya waxa khatara ummadii ilaahay wal cagastay haddii sidaas dhacdo ma heli doontid makaani gaariga ku hagaajiya waayo maal qabeen buu noqday oo waxa aan jiri doonan dhakhtar sidoo kale waxaad way doontaa engineer oo wastaad baan jirin oo wallahi kulibaanad helin oo mid hilibka ka iibiyaan jiri doonin sababtoo ah nin waliba waxa uu barkan yahay jawaan lacag maxaa ku kalifaya inuu shaqaysto sidaa daraadeed shaqo ma jiri doonto taasina waxay keeni doontaa in dhaqaaluhu dhulka galo noloshuna sidaa ay ku istaagto taasina waa jawaab mantiqi oo caqligaaga fuyoba ku siinayo hasaate haddii aanu si cilmiysan uga jawaabno waxa ku keenay in dhammaan dawladaha caalamku aanay soo daabicin lacag badan waa iyaga oo ka cabsi qaba hal shay halka wax oo dhaqaalaha u baabi'iyo sidii uu jidhka aadanaha markuu cudurku ugu dhaco u baabi'iyo kale oo waxa afka qalaad loogu yeeray inflation ka afkiina hooyana ku noqonaya sixir bar dawlad waliba marka ay soo daabacaysa lacag cusub suuqana ay soo gelinayso waxa qasab xaddiga lacageed ee suuqa soo gelinaysa inay ku jaangoyso wax soo saarka dalkaas ama kaydka dahab ee uu leeyahay haddii aan taa lagu salayn oo lacag badan suuqa la iska soo geliyo waxa dhici doonta in lacagta dalkaas qiimo dhacdo xataa waxay keeni kartaa in dhaqaalaha dawladdaasi gabi ahaan buu burburo waa haddii heerka sixir barku aad u sareeyo heerka ugu muhiimsan cilmiga dhaqaaluhuna waa the law of supply and demand xeerkani laba mid labadaba uu sheegaya waa ta koobaade in haddii uu shaygu noqdo shay sida lagu helayaa ay fudud tahay meel walbana iska yaal qiimo ahaan uu noqon doono mid raqiis ah ama aad u jaban qodobka labaad ee xeerkani sheegaya waxa uu oranayaa in shaygu haddii uu noqdo naadir ama mid helidiisu adag tahay qiimihiisuna noqonayo mid sareeya tusaale ahaan milix iyo dahab haddii aynu xeerkan inagoo adeegsanayna isbarbardhig ku sameeyno milixdu waxaynu ognahay inay ku jirto daily use-keena ama waxyaabahaynu maalin walba isticmaalno qiimo ahaan aad bay u jaban tahay sababtoo ah sida lagu helo ayaa fudud halka uu dahabku qaali ka yahay sababtoo ah sida lagu helo ayaa adag sidaas la mid ah lacagtana waxa ku dabaqmaya xeerka kan ah iyadoo lacagtu haddii ay suuqa ku badato lana hayn wax u dhigmo oo wax soo saara dabcan ay qiimo dhici doonto Soomaalidu waa indha ku garaan leh waxaad ka soo qaadaa in wax soo saarka suuqeena yaala uu yahay halka xabbe ee baradha xaddiga lacageed aynu haysanaana uu yahay halka $1 haddii ay dawladdu soo dabacdo $1 oo kale xaddiga lacageed aynu hadda haysanaa waa $2 laakiin wali wax soo saarkeena waa halka xabbe ee baradha ahayd sidaa daraadeed waxa aynu ku qasbanahay $2 ba in aynu siisano halka xabbe ee baradha maadaama ay tahay waxa kaliya ee suuqa yaala shalay halka mid ee baradha waxaynu siisanaynaa $1 maantana waxaynu siisanaynaa $2 qiimaheedii ama sixirkeedii waa uu laba jibaarmay inagoo iibsanayna isla xaddigii oo halkii xabbe ee baradha ahayd kaas ayaa loo yaqaanaa sixir bar sixir barku uu noocyo badan yahay waxaana ugu khatar badan ka loo yaqaan hyper inflation ama sixir bararka xad dhaafka ah dabcan waxa jira dawlado dhowr ah oo sixir bararka noocan uu dhulka la galay waxaana kamid ah dalka Jarmalku sanadihii u dhaxeeyay 1921 ilaa 1923 heerka sixir bararku waxa uu ahaa mid waali ah isagoo oo gaaray bishii Oktoobar 1923 9 iyo 20 boqolkiiba
taasi oo gaarsiisay in halka dollar u dhigma 2 trilyan oo lacagta Jarmalka ah heer ciid dhulka taala ay ka qiimo badatay lacagtii iyada oo waagaas ay qasab ahayd in aad sii qaadato jawaano lacaga kolka aad doonayso inaad soo iibsato hal xabo oo nacnacaan war sixir barbi sheegina nulaa بسكت كيف بجات لحقها أعوذ بالله Oh, come on. بارنا من وقت هلا كان كي شراب هاي السكنة ترى بلو يقعدك لا لا أسأل قاتل مرة كاريون هلا حقا إله بواب حياك أنا أفكر معاني واللي بالله وحق لما السلام عليكم سودو ها والله نعنع من دوني نعنع انبياء ونوش لك هريونا اللي يسي صنت من مها الله ماي ممر يورا ما انت لك هريونا بابا هريونا تكوي وهو نعنع دي سحر بر الولي والنعنع نيو ماي والله هريونا وحكر وهو نعنع إلا إيجادي إن حماها العقد اللفتي ذا لشتو وهي ضايا كقيمة شبان حافظة sababtii ka dambeysay sixir bararkana waxay ahayd dagaal weynihii adduunka ee koobaad kadib dawladda Jarmalka dhabarka waxa laga saaray deymo aad u badan dawladda Jarmalkuna si ay u bixiso lacagta lagu leeyahay waxa ay soo daabacday lacag aad u tiro badan iyadoo aanu suuqa yaalin wax soo saar u dhigma taasina waxa ay keentay in ay dhacdo musiibadani sidoo kale dawladda Zimbabwe sanadii 2008 waxa ay gashay sixir barar aan mid la mid ah hore looga arag qaaradan Afrika heer lacagta rasmiga ah ee dalka laga dhigay dollarka Mareykanka qiimo dhaca waalida ah ee ku yimid lacagtii Zimbabwe aawadeed asahaatee sixir bararkii ugu weynaa ee dunida tan ah ka dhaca in ilaa hadda xataa la arag mid la mid ah waxa uu ahaa kii ay la daaladhacaysay sanadii 1946 dawladda Hungary waxay ka mid ahayd dawladihii dagaalweynihii adduunka ee labaad lagaga guuleystay iyadoo dalkii ka adkaaday oo midowgii Soviyetka ku jireen la gashay heshiiska qodobadiisa waxa ka mid ahaa in ay Hungary bixiso magdhow ay siinayso dalalkii kaga adkaaday dagaalka kharashaadka ay Hungary ku bixiso magdhowgana waxa uu ahaa 25 ilaa 50 boqolkiiba miisaaniyad sanadeedka dawladda culayska baaxadda leh si ay dawladdu u dhinto waxa ay bilowday inay daabacdo lacag badan arrintaasina waxa ay keentay in gebi ahaanba dhaqaalihii dalku burburo talaabada qaldan ee ay dawladda Hungary qaadayna gebi ahaanba waxa ay zero gareysay qiimihii ay lahayd lacagteedu iyadoo oo meel walbana iska dhoomnayd laamiyadana waxa xataa looga fiiqi jiray sida xashiishka oo kale daawade su'aal baad isweydiin kartaa lacagaha ayaa u daabaca dawladaha caalamka in badan oo dalalka caalamka ka mid ah lacagahooda waxa u daabaca bangiyadooda dhexe sida dalka Mareykanka India Masar iyo Morocco oo kale halka dawladaha caalamka in badan oo kamid ah dalka dibadiisa lagu soo daabaca lacagaha dalka Switzerland waa dalka ugu badan ee dawladaha kale lacagahooda lagu daabaco halka shirkadda Delarue ee laga leeyahay dalka Britain ay tahay shirkadda ugu badan ee u daabacda lacagaha dawladaha caalamka waxay la tahay xabada nacnaa hadda wad garanaysan qiimaheeda iyo wixii lacag iga baxay Soomaa أنا نقدر نعمل معه والله ورنتا بلاش وابني هاي تكرادكم محاي منك والله شيء دام والله الكجي داوني ومقال كنا ما أنت سيء وكويجي فضلا كان الكادات كل صوتاي كوسو بيراديكو سبسكرايب تابعني هنا إلا من إن تجنبنا الكفرات سيو كوسو قارن مقال ولا بمركنه سيدا وسوقرينا فيديو قرا لايك صار مقال كوح أنت نسوقي من ضمن نبضي أنت هنسل لكن بحن هل كان وحكا صبح دون مقالات إني هرأي كان الكائن كوسو تبني متكملة كاتون تداوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.